ay soo gaareen biyo caawimo ah ayay agaasimihii guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Shacayb Buurmadow uu hogaaminayay baana soo gaaray horena noogu ballan qaaday muddo hore uuna soo maray aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa booyada biyaha uu na soo gaarsiiyay Shacayb aw Maxamuud Buurmadow agaasimaha macdanta iyo tamarta uu na soo gaarsiiyay baa halkan taagan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay meeshii aad ka soo saarteen oo aad ka soo saartay ilaahay wax khayr leh ilaahay ha kuugu bedelo siyaasiyiinta kale de waxaanu leenahay iyo maxaan idhaahdaaye xukuumadda iyo siyaasiyiinta kale waxaanu leenahay de waxay yeelaysaan de ku dayda oo waxa weeye dalku siyaasiyiin badan buu leeyahay waxa weeye de ku dayda oo waxa weeye dadkii abaar culus baa haysata waagaasimihii ugu horreeyay ee dawladda Soomaaliland ka soconaya oo hul wax qabad keenay waa kii koobaad mid intaabana agaasimayaashu daway dawladda Soomaaliland way ka shaqeynayeen way lahaayeen aad buu ugu mahadsan yahay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu inaga jabiyo abaarta ka jabiyo ballaaran ee baahsan ka jirta gobolada Soomaaliland iyo meel kastaba agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Shacayb Boqor Cismaan Buurmadow ilaahay baa mahad leh waa uga mahad celinaynaa agaasimaha si aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa hadda koowaadna ilaahay baa leh deeqdaasi waa la soo gaadhay biyaha waa kuwaas waa loo qaybiyay dadkii mujtamacii iyo bulshadii waa qaybsadeen si habsamiya bay noo soo gaadheen ilaahay halkuu ka soo saaray wax khayr qabaha ugu bedelo agaasimaha waxaan leenahay agaasima soo kordhi weli baahidii way jirtaa huluulla deegaan badan baa ka hooseeya oo dal badan baa ooman oo abaaruhu ay saameeyeen oo jilicsan ma hayno deegaankan raggii ka soo baxay dawladda siyaasiyiinta loogu jiray ma hayno waanu sugaynaa wixii agaasimaha guud ee macdanta Shacayb oo horun ugu ballan qaaday agaasima wana soo gaaray ballanqaadkaagii waana ku baahsan tahay mahad celintii horena ragga soo jeediyo si fiican ku amaanay waxaan sheegnaa halkan ka sheegnaa qurba joogta dhashay degmadan iyo siyaasiyiintaba waxaan u sheegnaa inay ku deedaan sida agaasimahaas oo kale oo dalkii waa baahan yahay xilli xun waa lagu jiraa oo dadku u baahan yihiin cunto iyo biyo u baahan yihiin deegaankuna aad u balaaran yahay booyadahaasi waxay ka kooban yihiin 15 booyadood waxaan u qaybinay 3 meelood baan u qaybinay degmada Huluul waxaan u qaybinay 6 booyadood Dhooma waxaanu siinay 3 booyadood Laastomaare waxaanu siinay 3 booyadood Kalbooca iyo Aagaamiga 4 booyadood baanu siinay 15 booyadood taasay ku dhan yihiin agaasimuna aad iyo aad buu mahadsan yahay aad baan uga mahad celinaynaa 15 booyadood oo dhiig joojina oo degdeg ah ayuu nala soo gaadhay runtii markaa waxaan leenahay ilaahay ha ku barakeeyo siyaasiyiinta deegaanka u dhalatayna waxaanu fariin halkan u marinaynaa iyo qurba joogta dadkii way tabaalaysan yihiin abaar baa haysata xoolii waa ka jilceen dad iyo dunyo waa la isla liitaa dadkii waa idin tabay waa la idin baahan yahay gurmad degdega waxay u baahan yihiin maanta wax noloshooda ilaaliya maanta naf bay u dhimanayaan maanta waa deegaanka waxa ka jirta caafimaad darro waxa ka jirta biyo la'aan waxa ka jirta cunto la'aan ummad maanta nafteeda badbaadinaysa bal maanta biyaha anagu deegaanaha wuxuu siiyey agaasimaha guud ee macdanta iyo tamarta wuxuu ku soo hagaajiyay ka gudoomiye ahaan anigu ku soo hagaajiyay waxaan u qaybinay sida xogayuu sheegay deegaankayga aanu matalo lagu hareeraysan magaalooyinka Dhoomo waa degmo magaalay ka mid tahay magaalooyinkayga ka mid ah waxa ku nool ummad biyo la'aan male ceel male Laastomaare riig male oo ceel male biyo waxay u soo joogaan buurta dhulku kule marmar baan laga weysaysan oo laga gabagabaystaa Laastomaare iyo Dhoomaba waxaan leenahay agaasimaha aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wuxuu noo dhagax dhigay system solar oo deegaankan oo aan weligeed leer yeelan ayuu bishan ay soo socoto leerkeeda ka hirgelinaya waxaan leenahay ballanqaadkii horena wuu fuliyay uu biyaha noogu ballanqaaday ka dambena wuu fulinaya waxaan leeyahay Shacayb Boqor Cismaan Buurmadow wuxuu mudan yahay ku dayasho ma sharaxno malihiin waanu sharaxayna laakiin waxaan leenahay waa agaasimo mahad loo celiyo